waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. Waxaynu guda geli doonaa qaybtii 22aad ee casharadeenii taxanaha ahaa. Qaybtan sida aa u jeedaan waxaynu ku baran doonaa sida loo diyaariyo qalinka loo yaqaano pencilka. Marka waynu guda gelaynaa page cusub baynu soo furanaynaa. Size-ka ku jira waxba ka bedeli mayno. Hore aan u gelaynaa. Halkan markaan joogno layer baan soo furanaynaa. Kadib waxaan soo qaadanaa rectangle-ka. Halkaas baynu dhiganaynaa. Kadib waxaanu colorkeenu qaadanayno waa gradient, ma isticmaali doono colorkan. Marka gradient waa ka halkaas aad ka arki doontaan. Hadda wuu diyaarsan yahay colorkeenu u baahnaa laakiin waa ka saarayaa si aa u aragtaan qaabka colorka loo diyaarinayo. Colorkan gradientiga la yidhaahdo waxaa loo yaqaanaa multi color, macnaheedu color badan oo isku jira weeye. Marka adaa si aad doontid u arrange garaysanaysaa ama u nidaamsanaysid. Halkan waxaa ku jira 6 dhuumood. Waa ujeedaan 6 dhuumood baa ku jira. 6da dhuumood annagu qalinku colorka uu leeyahay waa ma garanaysaa 2 color oo kala ah madow iyo guduud. Marka 6da dhuumood waxaynu gelin doonaa 3 iyo 3. 3 guduuda iyo 3 madow baynu ka dhigi doonaa. Marka iyo 3 madow baynu ka dhigi doonaa. Marka hadda guduudkan ku hormaraynaa. Guduud baan dooranay. Dhuuntan kale madow baan ka dhigaynaa. Dhuuntan kale guduud baan ka dhigaynaa. Dhuuntan madow baan ka dhigi doonaa. Dhuuntan guduud baan ka dhigi doonaa. Dhuuntan u dambaysa madow baan ka dhigi doonaa. Marka 3 iyo 3 baa hadda inoogu jira. 3 dhuumood oo madow ah iyo 3 guduud ah. Marka waa saas hadda colorka inoogu diyaarsan yahay. Halkan baan la dul imaan doonaa. Kadibna waa saaraynaa. Saas u saaraysaa. Kadib Control D baa oranaysaa. Hadda saas inoogu diyaarsan tahay. Ma garanaysaa layer labaad baan furanaynaa. Kadib isla rectangle-kii baan soo qaadanaynaa. Waxaan sameynaynaa halkan color baynu iska saaran doonaa. Casaanka ay ku jiraan u saaraynaa. Alt delete baan oranaa. Macni meesha cadaan baa looga baahan yahay laakiin cadaanka hadda haddaynu saarno ma suuroobayso background-ka cadaan ah. Marka waa qaybtan baa koobiyeynaynaa. Marka altan qabanaynaa waa drag baan leenahay waa jiidaynaa. Qaybtan aan koobiyeynay madow baan ka dhigi doonaa. Colorkaasaan rabnaa inaan saarno. Marka qaybtan aad dul tegaysaa control baa qabanaysaa dheg baa siinaysaa. Macni si uu kugu doormo oo ma garanaysaa highlight-ka kugu saarmo. Kadibna waxaa oran doontaa si aan madowga u saarno control delete baa oranayna. Kadibna control D baan leenahay. Waxaan samayn doonaa kanaan kusoo laabanaynaa xoogaa waxaan rabnaa inaan yareyno. Control T baan leenahay. wax yar baan soo yaraynaynaa. Kadib kanaan dooranayna waa qaadana waa dul geynaynaa. Marka inahaas halka inoo joogto waxaynu samayn doonaa
layer kalena soo qaadanayna furanaynaa layer 3 baan hadda haysanaa waxaan soo qaadanaynaa qalinkan la yiraahdo pen tool baan soo qaadanaynaa waxaan u adeegsanaynaa inaan u sameyno qalinka afkiisii hore kadib inaga ahaanaan dhigayaa waxaan oran doonaa control enter baan oranayaa control enter error baa iga galay wareeggaa sare inuu ma rabin inuu ii doormo marka errorka waxaan kaga saarayaa control shift I baan kaga saarayaa kadib intaas ii soo hadhay intaa marka color baan dooranayaa colorka halkaana kasoo dooranaya marka color baan dooranayaa kadib alt delete baan oranayaa saan colorka u saaro kadib control D baan oranayaa waxyar baan control T baan oranayaa waxyar baan hore waxaan rabaa inaan dheeraysto afka dhinacaasaan u daynayaa waxaan oranayaa kan laftigiisa baan rabaa inaan copy ka sameeyo altaan qabanayaa kadib drag baan leeyahay waa jiidaya kadib kan copy buu yahay rectangle-kaan soo qaadanayaa waxaan rabaa kan qayb inaan iska jaro rectangle-ka intaanan rabin baan ku aadinayaa ma garanayo khalad baa jira delete baan oranayaa control D baan oranayaa intaa yartaan la soo haray waxaan rabaa madow inaan ka dhigto marka control baan qabanayaa halkaasaan dooranayaa tigsiinayaa control baan qabanayaa waa dooranayaa hadda way dooran tahay madowgaan rabaa inaan saaro colorka madow control delete baan oranayaa kadib control D baan oranayaa marka intaa waxaan u rabtay inaan afka ka dhigaan rabaa qalinka afkiisa inaan ka dhigaan rabaa saasuu qalinkii qaybtii ugu muhiimsanayd ku diyaarsan tahay waxaan rabaa qaybtan inaan colorka ka bedelo oo ka dhigo caddaan marka sidaa caddaan uga dhigo alta delete baan oranayaa colorkaan dooranaya alta delete baan oranayaa hadda qalinka waa diyaarsan yahay waa isku wada xiraya waxaan oranayaa alta control A baan oranayaa kadibna control E baan oranayaa kadib si aan copy uga samaysto oo u badiyo altaan qabanayaa drag baan leeyahay altaan qabanayaa drag baan leeyahay marka control T baan oranayaa kaa ugu sareeya control Z qalinku marka qaabkii uu inoogu samaysnaa markii hore aan tusaayay qaabkaasuu ahaa qalinkiina saasuu ku diyaarsan yahay qaybta halkaasina waa intaa isku sii wada xiri kadhaa alta control A baa oranaysaa kadibna control E baa oranaysaa marka isku wada xirantaa ujeedaan meesha doontid baa u kaxaynaysaa haddaa u baahanta waa save garaysanaysaa baad tegeysaa magac baa ku qoraysaa GBE baa ka dhigaysaa backgroundka ku save garanaysaa kadibna save baa leedahay si wax loo save garaya hore usoo aragteen qaybtaan halkaasaan ku joojinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh